بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن ونكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka Soomaali Banaandir TV qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday qoyoley burburiyayna buundo muhiim ah dani oo xilalkii ka qaaday taliyaashii ciidanka badda Puntland kuwa kalena magacaabay dowladda Mareykanka oo war ka soo saartay dilka wariyihii CNN iyo TV-ga Universal Cabdiweli Cali Online xogayaha Bombeeyo oo Addis Ababa kula kulmay Abiy Ahmed taageerana u balan qaaday iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo la kulmay guddi doorashooyinka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan inta uu socdo barnaamijka haddii ay tahay markii ugu horeysay fadlan subscribe si aad u hesho barnaamijyadan halkaan soo gelino intaasina waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkarona iminkana ku soo dhawaada isagoo fidsan ku maqleyseen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ka dhacay dagaal culus oo saacado qaatay gudoomiyaha degmada Qoryooley Cali Waal oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shabaabkii soo weeraray degmada ay iska caabiyeen isla markaasna ay ka dileen ilaa 4 dagaalame sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in xarakada Al-Shabaab ay burburiyeen buundada degmada oo muhiim u ah isu socodka dadweynaha iyo guud ahaan gobolka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo si adag uga hadlay weerarkan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ka hortageen Najax ayaa sidoo kale tilmaamay in dagaalyahano badan oo ku dileen ciidanku hubna ay ku furteen dagaalkaasi sida uu hadalka u dhigay waxaan u hambalyeeynayaa ciidamadeena degmada Qoryooley kuwaasoo difaacay shacabka degmada kana hortaga qarax baabuur la rabay in lagu burburiyo buundada degmada waxaa shabaab looga dilay dagaal maleeshiyad badan oo waxaana looga furtay hub uu ka mid yahay qoriga BKM waxaana hadda la hayaa 3 mid oo ay ka carareen Al-Shabaab ayuu yiri gudoomiye Najax dhanka kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xilalkii ka qaaday agaasimayaashii iyo taliyaashii ciidanka badda Puntland BMPFta digreeto ka soo baxday xafiiska madaxweyne Dani oo ku taariikhaysan 17 bishan xalay saqdi dhexe la baahiyay ayaa xilkii looga qaaday agaasimihii BMPFta Cabdiraxmaan Maxamuud Xaaji Xasan waxaana xilka loo magacaabay Cabdirabbi Cabdisamed Maxamed sidoo kale waxaa xilka qaadis lagu sameeyay taliyihii iyo taliye ku-xigeenadii ciidanka BMPFta Admiral Cabdirasaaq Diiriyo Faarax Admiral Maxamuud Ciise iyo Admiral Cabdulaahi Axmed Yuusuf waxaana loo magacaabay 4 taliye oo cusub kaashaano sare Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac ayaa loo magacaabay taliyaha howlgelinta ciidanka BMPFta kaashaano dhexe Xabiib Faarax Xasan ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka lugta BMPFta kaashaano dhexe Baari Salaad Axmed ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka commandoska BMPFta kaashaano dhexe Maxamed Cabdi Diiri ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka qaybta badda ABS ee ciidanka BMPFta taliyaashii xilalka laga qaaday ayaa loo bedelay taliska guud ee ciidanka Daraawiishta Puntland hagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Soomaali Banaandir TV Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa cambaareysay dilkii bishan 16keedii loogu geystay wariye Cabdiweli Cali Xasan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wariye Cabdiweli Cali Xasan online uu ka howlgalayay raadiyo kulmiye iyo TV-ga Universal waxa ay safaaraddu tacsi u dirtay xaaskiisii iyo caruurtiisii saaxiibadii iyo dadkii ay shaqo wadaaga ahaayeen safaaraddu waxa ay sheegtay in beegsiga iyo dilalka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu tahay in ay warka gaarsiiyaan waxna baraan bulshada ay tahay mid ay Al-Shabaab ku doonayso inay ku aamusiso codadka Soomaaliyeed
safaaraddu waxa ay bogaadisay hawsha ballaaran ee halbowlaha ah ee ay wariyaashu hayaan. Sidoo kale waxa ay sheegtay in ay aqoonsan yihiin khatarta iyo culeysyada ay ku shaqeeyaan. Qoraalkaas ay safaaraddu ku sheegtay in Mareykanku ay garabka ka taagan yihiin dadka Soomaaliyeed si ay u wada difaacaan xorriyadda lama taabtaanka ah ee warbaahinta iyo xorriyadda hadalka. Saxaafadda ayaa ugu dambeyn ku baaqday in la soo afjaro dhaqanka rabshadaha iyo nabadgelyada kuwa wax dila oo ah mid khatar ah. Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay magaalada Addis Ababa kula kulmay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo saraakiil kale. Booqashada Pompeo ayaa diiradda lagu saaray amniga, maalgashiga, isbedelada siyaasadda ee Itoobiya iyo muranka Itoobiya kala dhexeeya Masar ay xulafo yihiin Mareykanka. Itoobiya ayaa kadib kulanka sheegtay in Mareykanka uu qorsheynayo in taageero maaliyadeed oo mug leh uu siiyo Itoobiya si looga xoojiyo isbedelada. Itoobiya ayaa bisha Agoosto waxaa ka dhici doonta doorashooyinka tijaabo u ah isbedelada Ra'iisul Wasaare Abiy, taasi oo uu wacd ku maray inuu noqon doono mid xor iyo cadaalad ah. Doorasho xor ah oo la isugu halayn karo waxa ay muujin doontaa in qof kasta uu cod leeyahay, ayuu yiri Pompeo uu sheegay wariyaasha. Ma haysano wax khibrad dimuqraadiyadeed oo hore ah, balse waxaan maslaxa u furi doonaa dadka oo dhan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya. Kulanka ayaa sidoo kale lagu soo qaaday xiisadda Itoobiya kala dhexeysa Masar ee ka dhalatay biyo-xireenka ay ka sameyneyso webiga Niil, kaasi oo ay kasoo horjeedo Masar oo xulufo la ah Mareykanka. Waxaa weli jirta shaqo culus oo loo baahan yahay in la qabto, waxaanse ku niyadsamahay in bilaha soo socda aan arrintan xallin doono, ayuu yiri Pompeo. Heshiis kama dambeys ah ayaa la filayaa bishan. Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in Mareykanku uu bixin doono $8 milyan oo lagu taageerayo la dagaalanka ayaxa ka dillaacay Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. Waa tahay dhegeystayaal weli waxaynu dhexda ugu jirnaa barnaamijka Somali Banaadir TV. Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland oo shalay galab ka baxay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa qarax la beegsaday dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ciidamadan ayaa ku sii jeeday degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose, balse Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday xilli ay marayeen duleedka degmada Qooqani, waxaana la sheegay in qaraxaasi uu haleelay gaari cabdi-bile ah oo ka mid ahaa kolonyada ciidamada Jubbaland. Inta badan ciidanka saarnaa gaarigaasi ayaa ku dhintay qaraxa, halka kuwo kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland. Ciidamada la qarxiyay ayaa ujeedka ay Dhobley ugu socdaalayeen waxa uu ahaa in ay hordhac u noqdaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo maalmahan soo aadan doonaya inuu socdaal ku tago degmada Dhobley. Ciidamada ayaa loo waayay diyaarad lagu geeyo Dhobley maadaama qaar ka mid ah deegaanada dhaca inta u dhexeysa Kismaayo iyo Dhobley ay maamulaan Al-Shabaab, waxaana lagu amray inay xoog ku amaraan dhulka ay Al-Shabaab ugu sugan yihiin inta u dhexeysa Kismaayo oo ay ka baxeen iyo Dhobley oo ay u socdaan. Saraakiisha aan la hadalnay waxa ay noo sheegeen in madaxweyne Axmed Madoobe uu maalmahan soo aadan safar dhul ah ku tagi doono degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose, inkastoo qaraxii shalay galab kadib Jubbaland walaac badani kasoo wajahay suurtagalnimada socdaalka Axmed Madoobe ee Dhobley. Sida aan xogta ku helnay, Jubbaland ayaa gacanteeda laga saaray magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gedo kadib markii ay dowladda dhexe geysay ciidamo ay ka daabushay Muqdisho, waxa ayna hadda ku fara adeegaysaa gobolka Jubbada Hoose oo kasoo gaaray gacanteeda maamul. Ururka Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi ayaa war ay kasoo saareen ku sheegay in askarta ay ku dileen qaraxa ay ku jireen 2 sargaal oo hogaamin jiray ilaalada Axmed Madoobe, kuwaas oo ka mid ahaa gaashaanle iyo gaashaanle sare, sida ay hadalka u dhigeen.